maqaalkan waxa aynu kaga warramaynaa ama ku soo koobeyna waxyaabaha qaabaya qofnimada aadanaha iyo marxaladaha maskaxeed uu mar qofku inta uu korayo. Haddaba sida aynu wada ognahay, shaqada ay maskaxda aadanuhu qabato waxay culimadu u qaybiyeen 3 qaybood oo kala ah: thoughts afkaar ama fikir, emotions dareen, iyo behaviors oo ah dhaqan iyo dabeecad. Saddexdaas shaqo oo isdhamaystiraya ayaa shakhsiyadda qofka qaabaya. qof walba wuxuu kaga duwan yahay kan kale, waa inuu si ka duwan iyo meelo ka duwan ka helo saddexdan shaqo. haddaba su'aasha isweydiinta mudan waxa weeye, sidee qofku fikirkiisa, dareenkiisa, dhaqankiisa ku kasban karaa? waa halkeesa meesha uu ka kasbanay waxa soo idil. si aynu uga jawaabno su'aalaha, waa in aynu marka hore baraadka qofka iyo qaybihiisa wax ka iftiimina, inagoo tusaale ku muujinayna. baraadka qofka waxaa loo qaybiyaa 3 qaybood. qaybta koowaad waa qayb si joogto ah u shaqeysa oo amarna fikir iyo xusuus dheeri aan u baahnayn, waxaana yiraahdaa conscious mind. tusaale ahaan, haddii aan ku weydiiyo magacaaga, uma baahanaysid fikir iyo dadaal dheeri ah si aad u hesho su'aasha jawaabteeda. qaybta labaad waa qayb soo jeeda, shaqeynaysa, balse u baahan inaad fikir iyo xusuus aad geliso, kadibna xogta aad u soo gudbiso qaybta koowaad, sidaas lagu hawlgeliyo xogtii la soo xusuustay. qaybtaasna waxaa la yiraahdaa pre-conscious mind. tusaale ahaan, haddii aan ku weydiiyo macallinkaaga juqraafiga fasalkii 8 magaciisa, ma awoodin inaad isla markiiba xusuusatid. sidoo kale, haddii aan ku weydiiyo meel heblaayo, goorma ayay ahayd waqtigii kugu horeysay, iyana waa sidoo kale. su'aalahaas oo dhan jawaabahoodu waxa ay ku kaydsan yihiin ama ku xadhaysan yihiin qaybta labaad, balse waxay u baahan tahay inaad ka fikirto oo aad keento xogta qaybta koowaad si aad ugu warceliso weydiimaha lagu weydiiyey. qaybta saddexaadna waa baraad damsan ama aan soo jeedin, waxaana la yiraahdaa isaga unconscious mind. marka loo barbar dhigo labada hore, aad ayay ugu weyn tahay, waana qaybta dhabta ah ee qofnimada qofka qaabaysa. waxayna kaga duwan tahay labada qaybood ee hore dhowr shay oo la yaab leh. koowaad, qaybtan uma fikirto si macquul ah oo logic ah. sidoo kale, xogaha ku kaydsan ma kala socon waxa hadda jooga present ah iyo waxa hore u dhacay oo past ah iyo waxa dhici doona future ah. sidoo kale, dhammaan xogaha ku kaydsan waxa loo tixgeliyaa waxa hadda jooga present ah. sidoo kale, xogta ku kaydsan qofka doonistiisa kuma keeni karo qaybaha hore si uu ula wadaago bulsho. ma kala saari karo xaqiiqada iyo malawaalka. tusaale ahaan, markii aad leedahay waxyaabihii dhacay, haddii aan ku weydiiyo waxba kama xusuusatid, taa macnaheedu maaha in aan maskaxaada ku jirin, balse waxay ku jirtaa qaybta dambe. balse haddii aad xogaha aad kaydisay yaraantaadii ay yihiin qaar si togan loo dhisay, shakhsiyadaadu waxay noqonaysaa mid togan. waxa ayna ku kala xoog badan yihiin xoguhu sida ay u kala horeeyaan. haddaba daawada waxaa jira 8 martabadood ee uu qofku ka dhaxlo shakhsiyadiisa, iyadoo midba tan ay ka horeyso ay ka saameyn badan tahay, mid walbana tilmaan gaar ah laga dhaxlo. intaas ayaynu ku soo koobaynaa barnaamijkii ku saabsanaa shakhsiyadda qofka iyo waxa qaabeeya. la soco barnaamijka xiga oo ka bixi doona bandhiga xogaha.